الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بقى aqoonyahanka iyo waxgaradka xubnaha bahda waxbarashada saxaafada bulshada rayidka iyo guud ahaanba goobjoogayaasha waan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidaa injineer Cabdistaar tilmaamay maanta farxad ayay noo tahay kulankan inaad nagala soo qayb gashaan. ugu horeyn waxaan ka cudur daaranaynaa daahitaanka waqtigii bilowga nooga yar dib dhacay waqti baan yar dib dhacnay. waad iska taqaanaan marka barnaamijka la furayo waxoogaa yar oo meelo isir qaban waaya mararka qaarkood iska dhaca. laakiin taas insha Allah tacaala ma saameyn doonto waqtiga intiisa kale ma saameyn doonto qaybtii furitaanka ayuun bay wax ka yar noqdeen marka inta naga raali aada. mudanayaal iyo marwooyin maanta halka waxay noogu furmaya barnaamijka la yiraahdo aqoon isweydaarsiga sanadlaha cilmi baarista Soomaaliyeed. aqoon isweydaarsiga sanadlihii waa madal sanadla ah loogu talagalay inay ku kulmaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed dadka cilmi baarista ku sameeya iyo daraasadda ku sameeya arrimaha Soomaalida dhinacyadeeda kala duwan. waa madal ay ku kulmaan oo sanadkiiba mar dhacda. sidaynu ognahay cilmi baaristu waa shay muhiim ah jiritaanka ama ha noqdaan dawlad ama dad ama ummad ama hay'ad ama shirkad dhammaantood laga maarmaan iyo lama huraan ayay u noqotay cilmi baaristu. sidaa darteed baad arkaysaa hay'adaha iyo shirkadaha iyo dhammaanba waxay leeyihiin waaxaha cilmi baarista oo mararka qaarkood la isku daro oo research and development R&D inay wada socdaan. horumar lama jiritaanka halis gelaya horumarna lama sii gaari karo haddii cilmi baaris ayna jirin. marka inaga ummadeena Soomaaliyeed mar walba waxaan u baahannahay inaan xoojino cilmi baaristeena iyo daraasadaha lagu sameynayo. sidaa darteed barnaamijkan uu soo qaban qaabiyo maxadku waa barnaamij sanadla ah loogu talagalay aqoon-yahanada Soomaaliyeed inay ku soo bandhigaan cilmi baarista iyo daraasadaha kala duwan ee ay ku sameeyaan arrimaha Soomaalida. ha noqoto goobta ay degan yihiin oo geeska Afrika ama ha noqoto qayb dhan oo ummadda Soomaaliyeed ah oo qurbaha jirta ayaa jirta dadka qurba joogta ee dibadda jooga qaaradaha adduunka ku kala firirsan ha noqdaan. barnaamijkan wuxuu xooga saaraa gaar ahaan culuumta bulshada dhinacyadooda kala duwan social science and humanities oo ah baahi xoog leh ay ka jirto nolosheena saynu u fahmi lahayn mashaakilkeena saynu u fahmi lahayn sidii looga curin lahaa fikrado sidii loo furdaamin lahaa waxyaabahaas oo dhan buu xooga saaraa. barnaamijkan sanad aqoon isweydaarsigan sanadlaha ah maxadku wuxuu bilaabay sanadkii 2014 waxaa loogu talagalay sanadkiiba mar inuu dhaco. waxaa loogu talagalay sanad kasta marka in xooga lagu saaro bal dhinac ka mida nolosheena in cilmi baaris iyo daraasado lagu sameeyo aqoon-yahan ama halku dheg loo sameeyo. sanadkii ugu horreeyay 2014 aqoon isweydaarsigii kii koowaad waxa uu ahaa cinwaankiisu dhibaatada xaalufinta dhirta Soomaaliya waa mushkilad weyn oo ina haysata. waxaa lagu falanqeynayay sababaha xaalufinta keena natiijada ka dhalanaysa iyo sida loo xallin karo. kii kale ee xigay oo ahaa sanadkii 2016 aqoon isweydaarsiga sanadlaha labaad cilmi baarista Soomaaliyeed oo kii labaad uu dhacay sanadkii 2016 cinwaankiisu wuxuu ahaa tahriibka safarka yididiilada iyo geerida falanqeynta sababaha dhibaatooyinka iyo xalka. maadaama tahriibku dhibaato culus uu yahay oo ummadda Soomaaliyeed haysata bal in sababaha tahriibka keenayana la lafaguro la falanqeeyo dhibaatooyinka ka dhalanayana waxaynu aragnaa un dadka dhimanaya laakiin dhibtu ma intaasa ma dhibaatooyin kale oo badanna way jiraan ayagana in dhibaatooyinkaas la soo muujiyo oo la soo saaro sidii bal wax looga qaban kari lahaana la isweydaarsado. aqoon isweydaarsiga labaad qoraaladiisii qoraalo fiican yaa ka soo baxay. waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda sanadka 2018 bilowgiisa iyagoo buug ah in la daabici doono oo dhammaantoodna ku qoran yihiin af Soomaali. dadaal badan iyo xoog badanna waan gelinay sidii mushkiladaas bal muxuu ahaayay fahmideeda iyo wax looga dhihi lahaa. kan saddexaad oo aynu maanta u joogno aqoon isweydaarsiga sanadlaha saddexaad aynu maanta u joogno halku dhagiisa sidaad arkaysaan waxaynu ka dhignay cinwaankiisu sida oo meesha uu ka muuqdo adkaysiga iyo soo kabashada bulsho colaadi halakaysi. sidaynu ognahay bulshadeena Soomaaliyeed colaad sokeeye iyo dagaalo sokeeye ayay ku soo jirtay muddo qiyaastii 40 sano ah. markii 10 sano colaadaasi ay dhacaysay dagaaladaas sokeeye ay socdeen ayaa waxay sababeen inay dawladii Soomaaliyeed dhexe inay dhacdo
kadibna colaadihii way sii xoogaysteen colaadihii marka marna ha kululaadaan marna ha khafiifaan marba calan ha qaataan laakiin muddadaasay soo taxnaayaan waxaan shaki lahayn dhibaatooyinka intaa la eg sababa keena inay jiraan waxaan shaki lahayn natiijooyin iyo dhibaatooyin iyo isbeddello ka dhashay inay jiraan waxaan shaki lahayn in dhibaato kastoo jirta xal baa loo helaaye in xal loo heli karo marka waxay u baahan tahay bal aqoon-yahanku inay wada gorfeeyaan si degan u gorfeeyaan oo u falanqeeyaan sababihii dhibaatooyinkaas iyo colaadahaas sababay dhibaatooyinka iyo waxyeelada iyo isbedelada kala duwan ee ka dhashay oo ah nolosha inuu maanta ku nool lahay iyo sidii looga sii bixi lahaa iyo mustaqbal ahaan maxay sii noqon kartaa aqoon isweydaarsigan sanadlehee saddexaad oo dhowr bilood aan soo qabanqaabinaynay guud ahaantiis wuxuu ka koobnaan doonaa 5 fadhi oo kala duwan fadhi kasta ama session kastana waxaa lagu soo bandhigi doonaa qoraallo ama cilmi baariso iyo daraasado kala duwan laakiin taabanaya dhinac nolosheenna ka mid a mid walbaba uu taabanayo guud ahaan qoraallada lagu soo bandhigi doono ama daraasadaha laynagu soo gudbin doono aqoon isweydaarsigeennan waa ilaa 15 daraasadood oo kala duwan qaarkood ay taabanayaan dhinacyada muxuu ahaaye arrimaha bulshada guud ahaan ay ku wareegayaan qaarkood ay taabanayaan adeega bulshada sida caafimaadka waxbarashada qaarkood ay taabanayaan dhinaca dib u dhiska iyo nabadda dhisideeda iyo soo kabashada qaarkood ay dhinacyo fara badan oo kala duwan ay taaban doonaan waynu arki doonaa guud ahaan aqoon isweydaarsigu wuxuu inoo socon doonaa 3 maalmood haddii la yiraahdo oo xiriir oo maanta inoo kow tahay maanta talaada arbacada iyo khamiista ayuu inoo socon doonaa saddexdaas maalmood sidaan tilmaamay waxaa lagu soo bandhigi doonaa qoraaladaas kala duwan ee ilaa 15 qoraal gaaraya halkan fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u mahadnaqo aqoon-yahanadii kala duwanaa ee daraasadaha soo diyaariyey muddo ka soo shaqaynayay waqtigooda iyo cilmigooda inoo huray inoogu deeqay inay maalmahan inoo soo bandhigaan hawl ay muddo soo diyaarinayeen oo la hubo waqti badan inay geliyeen dadaal badan ay geliyeen hawl badanna ay ka qaadatay marka fursad ayay ii tahay inaan halkan uga mahadnaqo la'aantoodna hawshan inoomay qabsoonteen maantana isku imaatinkeennan muxuu ahaa inooma suurta galeen haddii dadaalka ayagu ayna gelin lahayn waqtigooda iyo cilmigoodana ay inoo huri lahayn aqoon isweydaarsiga sanadlaha ah wuxuu ka mid yahay hawlaha kala duwan ee uu macadku qabto hawlaha kala duwan ee uu macadku qabto waa ilaa 5 hawlood oo si joogta u qabto waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsiga sanadlehen tilmaamay oo ah madasha in maanta goobtan u fadhino shantuba barashuurada leedin siiyeen way ku qoran yihiin muxuu bannerka halka yaalana way ku wada qoran yihiin iyaga oo muxuu ahaaye kilib ahna qaarkood waynu ka daawanay waxaa ka mid ah oo kaleeto oo la mataansan aqoon isweydaarsigan academic journalka la yiraahdo Somali Studies oo sanadkiiba mar soo baxa cilmi baaris iyo daraasaad kala duwan oo arrimaha Soomaalida khuseeya lagu soo qoro kii labaad ayaa soo baxay sanadkan 2017 kii koowaadna wuxuu soo baxay 2016 kii saddexaadna sanadka soo socda ayaan ku tala jirnaa insha Allah tacaala inuu soo baxo qaybtiisa hore guud ahaan markii la fiirsho journalkaas Somali Studies waxaa lagu soo qoraa waa waxaan loo yaqaano peer reviewed academic papers ama waa majalle cilmiya muxakama oo ay dad qiimeeyeen aqoon-yahani ay mar walba soo qiimeynayaan qoraal kasta markii loo eegana noociisa waa ka saddexaad ee ka soo baxa dunida ka ugu caansan muddada ugu dheerna socday markii la fiirsho arrimaha Somali Studies u gaara waa mid kale yiraahdo Bildaan ee ka soo baxa Mareykanka uu editorka ka yahay Professor Ahmed Ismail Samatar mid kale The Journal of Somali Studies baa jira oo isna muxuu ahaayay dhowr sano jira isna 2 sano qiyaastii ka saddexaad wuxuu noqonayaa midkan Somali Studies peer reviewed academic journal ee soo saaro macadkan cilmi baarista Soomaaliyeed ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ISOS waa xarun cilmi baariseed oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho ujeedada ugu weyn ee loo aasaasayna waxa weeyaan jaamacaddu maadaama culays hawsheeda ugu badan ay tahay waxbarasho inay dadka wax bartaan laakiin mar walba waxbarashada waxa la xiriira cilmi baaristu way badan tahay laakiin haddana dhanka arrimaha Soomaalida marka xaruntan ISOS ama macadkan ISOS waxa loogu talagalay dhanka cilmi baarista Soomaalida ee jaamacaddu ay xilka iska saarayso inuu noqdo hay'adii ama xaruntii qaban lahayd inay noqoto ayaa loogu talagalay ugu dambeyn waxaa maanta fursad noo ah inaan idinku soo dhaweyno
sidoo kaleeto waxaan idinkaga soo mahadnaqaynaa kasoo qaybgalkiinan aad kasoo qayb gasheen aqoon isweydaarsigan sanadlaha saddexaad ee cilmi baarista Soomaaliyeed eed nagu sharafteen inaad timaadaan. waxaan rajaynaynaa 3 maalmood oo kala faa'iideysasho aynu ku jirno isweydaarsi aqoon iyo cilmi in badan nolosheena marka la fiirsho waxyaabo laga naxo iyo waxyaabo aadan jeclayn iyo waxyaabo culays ama murugo kugu keenaa laga yaabaa wararka aad maqlaysa inay noqdaan, laakiin in waxaasoo dhan laga baxo caalam kale oo caalamkii cilmiga iyo aqoonta iyo fikirka alla galo 3 maalmood lagu wada jiro arrintaas la wada wadaago. qof kasto inaga midana faa'iido ayay u tahay, maxadkana sharaf ayay u tahay. kasoo qaybgalkiinana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. marka ku soo dhawaada 3 maalmood aynu wada joogi doono inta hawshu inoo socoto ee 3 maalmood ah. dabcan jadwalku siduu u socon doono waynu mar dambe aynu kusoo noqon doonaa yar faahfaahin doonaa. 3 maalmood barnaamijka iyo qabanqaabadiisa iyo hawsha iyo martisoorka iyo haddii waxyaabo ay naga sidii aad mudnaydeen ay noqon waayaan waxaan rajaynaynaa inaad noo dul qaadan doontaan insha allahu tacaala. marka ugu dambeyn soo dhawaada, ku soo dhawaada aqoon isweydaarsiga sanadlaha saddexaad, ku soo dhawaada muxuu ahaayey madashan maxadka iyo xaruntan jaamacadda. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. أستاذ مصطفى هذا يوم هذا علينا هدو إلى إلى هذا نوحان سين دونا كلمة دحيقة كلمة الصور دوين هدو إلى إلى قدومي كحجانك أرمى على قدومي كحجانك جامعة سيمت الدكتور محمد إبراهيم محرجين دونا إلى الصور دوين دون هدو إلى إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. سودو هذا قدومي أنا سودو ويي لما أنتي مرتدبة maadaama waqti uu ciriiri yahay inaan ka faa'iidaysano. arrintan meeshan loo fadhiyo waa arrin academic conference ah oo waddankeena shirarada la qaban jiray. markaan yarina shirar waa maqli jirno oo shirar oo dib heshiisiin aan maqli jirno. markaan weynaano waxaan ogaan shirka inuusan dib heshiisiin bes ahayn oo shir oo dad isdagaashadeen inay shir loo qabanayo ayagana oo cilmi laga hadlayo. marka alxamdulillah waxaan rabaa wax yar inaan idin sheergareeyo maadaama xamar aan ku noolahay oo nolosheedina intaan joogaba intaan ilaahay abuuray waddankaana joogay iyo meel aad mooye xamar aan ka shaqeeyaa. dadka oo waxaan ka mid ahay oo jaamacadaha doctor professorka iyo asxaabtaan isa shaqeynaa. qofka researcherka ahaa Soomaali ku nool ama ha ahaado arday hadda waxbarasho wado ama ha ahaado macallin dhibaatada haysta maxaa ugu waaweyn horta walaalayaal waxaa ogaatiin adduunka dadka researcherka sameeyo waa macaadeed ma ahan dad oo xaafid joog research sameeyo. marka challenges-kana haysto intaan gelin ka hor waxaan rabaa inaan sam oo daatooyin idin shargareeyo oo aad heli kartiin. Soomaaliya marka laga hadlaayo adduunka index leeyihiin oo corruption index, poverty index, civil index waxaas dhan waa wax, laakiin waxaa jiro haddan research index. Afrika waxaan ku jirnaa 54 waddan waxaan ka nahay 52. maana waxaa naga hooseeyo Comoros. haddaa Comoros aan ka fiicanay aan dhehayno waa wax kale, cid kale naga fiican male. marka laga hadlayo marka per capita income waxa la jiro. per capita income waa taqaanin oo xoolaha waddankan yaalo dadka haddii la qofka misak soo aada waay. sidoo kale waxaa jiro waxa la per capita research. Soomaaliya 20 sano la soo dhaafay haddii loo qeybiyo wix la soo saaray qofkii misak soo aaday haddii la dhihi lahaa 0.00 noqonaya. marka si kale u dhigaynaa haddii Soomaaliya waxa oo 20 sano la qoray oo Soomaalida ay qortay dadka Soomaaliyeed imisa halkii xabo qoreen waxay noqonayaan halkii research waxa isla qoray 120 kun oo Soomaali isla qortay noqonay 120 kun oo qof dhaxal waxay u helayaan hal research. wadamada ugu horeeya Denmark iyo ka mid ah 8 qof hal research ka soo aada. even Tunisia iyo Egypt iyo Ethiopia waxa ka soo aada macnaha halkii kun oo qof hal qof. marka waddanka nagu xigo oo ugu liito 60 kun oo qof halka soo aada. marka fahmi kartiin meesha aan joogno. marka sheekooyinkan oo kale in la babadiyo oo sidii culimada oo kale waana soo dhibtay culimada waxa la dhahay raalli ahaado in soo dhibay. markaas la soo dhibatay oo kale waaye. marka in conference-ka markaas la badiyo waa muhiim. marka maxaana haysto challenges-ka marka la haysto waxna waa individual level waxna waa maxaa la dhahay institution level. haddii af Soomaaliya ay fiicnaan waa la yaabin macnaha af Soomaali wax ma lagu soo barin marka dadka hooyaday aabahay iyo macallimiinta loo haystaa. marka individual level umano individual level marka laga hadlayo ani hadda ka darasay sameyn ana maxay haysto horta waxa ay haysto information ma haysto.
articalka ugu horeeyo aan rabo mana articalka aniga aan qorno waa kii ani aan qoray ama kii professorku qoray haddii hadda aan u baahdo inaan helo $39 $4 inaan bixi noqonay haddii lagu publish gareeyay international journal inaan bixi u baahana database ma haysto maxaa u haysan weynay lacag la-aan maana haysto waa sheekal ayadan kow number 2 data ma haysanaba waddankeena hadda fiiri waa la dhintay waa waay daraad sooba ugu dambeysay walaxa ka dhacan lahayo meel reliable source leeyahay intaas dhimatay hataa lama haysto data ma haysan marka Soomaaliya wax ka qortid journal ah u dirtid maybe waxa laga yaabaa ustaad Mustaf in ka saay aaminahay laakiin gaal joogo Mareykanka marka u diro wuxuu leeyahay Soomaali how reliable is the source u kalsoonaana subaxdii buu soo diiday wuxuu leeyahay sorry ma publish gareyn karo soo diiday war data ma haysan marka dadka ka shaqeeyo macadka oo kale inay daatooyin aruuriyaan ka soo informationkii articles in daatooyin la aruuriyo daatooyin qaarkood waa la heli karaa in la aruuriyo muhiim maxaa kale in haysto wax kale in haysto inaa wax qor maxaan ka dheefa jaamacadan ka shaqeeya 10 sano ka shaqeynay wixii ani aan qoro macluub ma sameynayso hadaan qoro thank you ma lidhahayo lacag lagu misiinay mushaarkay kama dareemayo rankinkay xitaa shan xabaa qortay kasto ustaada ku dhayna ma lidhahayo maxaan ka dheefa ayadana waa challenge jirto oo dadka jaamacadaha ka shaqeeya aan haysto adduunka macallimiintu waxay ordaan contract ma la siinayo waxa leeyahay contractiga wax kaaga xiran 5 papers ka aawe marka 5 papers orda ani contractiga waxba kama xiran marka way oo isku dhiba kii isdhibana waxa laga yaabaa inay intaas u dheer tahay intaas waxa sii dheer jamaacatul muslimiin gaar ahaan macallimiinta paperka marka rabo publish gareena aan dhaho submission fee waxa la hadal keenay publication fee ka cabaada jirnay paperka marka la fiirsho oo la soo review goreeyo ka bacdi la aqbalo $300 bixinay ma hayno hada ma jirto marka dhiibaysid $500 bixinay oo ka bacdi la fiirina marka $500 inaan bixiyo waxa laga yaabaa desk rejection waxa la dhaho inuu caaw marka u diro ka soo qaad ustaad Maxamed Goosara inuu fiiriyo $500 marka uu qaato oo this is out of the scope aniga waxaan ka hadlaynay media aesthetic hadlaynay aan economic ka hadlaysa raali in soo dhaho $500 waa gubti $500 mushaarkay bishii waa iba this is the point marka see wax u qora marka challenges ka haysto qofku intaas institutions jaamacada ay challenge haysto maxaa haysta ayna kow research grants ma haystaan jaamacada adduunka oo u jeedin wax la qoraay jaamacada bas jeebkeed arday laga qaadi ma research grants haystaan mesela wasaaradda waxa leh intaas le kana leh wadanka marka research grants male see loo heli lahaa hadda wal xaba bilowday World Bank iyo مثلا عربت iyo waxa meelo kow naga xirnay aaba bilowday marka in oo taas nafsaha la sii xoojiyo muhiim ugu dambeys marka maxaan rabaa maxaa wax ka qaban karnaa miska dhaafnaayo oo 120 kun maan joognaa oo indhaha maan ka fiirsana ama waxa qaban karnaa anu is leeyahay waxa naga maqan collaboration Soomaalidu ma hadii qofku wax qoro buug kasta Soomaalida hal qof qoray buug fiiri qof ku qoran hebel as-Soomaaliya ku qoran mana laakiin journalist adduunka fiiri 8 qof arkay caafimaadka fiiri paper hono 3 page ah 10 professor qorta arkay wax yar oo economic ah 5 qof qorta arkay marka hadii la isku darsan lahaa leeyahay adna data analysis ku fiican tahay soo analysis ray adnana iyo hadalka ku fiican tahay literature soo adil isdhihi lahaa waxa leeyahay in oo la iskaabil hayo wax la soo saar lahaa marka collaboration individual kaas oo loo baahan yahay xitaa waxaan observe garay imtixaan jaamacad dadka isla jooga wax isla qoray mid wada dhaxda u istaaga iska dhaafa hadhow markii waxa laga yaabaa in mid teknolojiyada joogo skillski haya mid kale joogo مثلا managementiga oo hadalkii haya isku dar lahaa waa idin challenge individual level collaboration ka dib waaya waxa ka daran institutionskana article jacan muqdisho yaalo waxa laga yaabaa simad inay $500 soo gadataa laga yaabaa jacan muqdisho uu maal hadii isiin hada dhici karto vice versa ayagana waxa laga yaabaa mid oo anaga heli karin inay soo gataan marka waqis ala dhalika takun calaamati oo ninkii naxwa dhahay wasaas kale marka waxaas dhan wasaas marka maxaa leeyahay ugu muhiimsan hadda adduun waa la hormaray teknolojiyada waxay maray wataqaan hadda waxa la dhahoyaa waxa lagu socdaa fourth revolution kii kowaad waxay ahayd industrial revolution then technological internet hadda waxa la maraa artificial intelligence iyo intelligence revolution inta la maraa marka haddii oo aan research samaynin waa ka haraynaa dadka caafimaadka maybe dhakhaatiira joogo how many qof cancer naga disho maana wadankan oo Malaysia ana joogo jiray qof kasta Malaysia caafimaad loo keen cancer u haya waxa laga yaabaa maxaan haysto mabla yaqaan wax haysto marka sheekadan sheeka fiican waay hal wado insha Allah ta'ala milfin waa gaaray aan laakiin waxa xoojinaa collaboration waa muhiim individual level iyo institution level oo masantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aad ayaan ugu mahadcelinaynaa doctor maxamed ibraahim gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda simad sida quruxda badan leh oo u faahfaahiyey waxaan rajayn doonaa tala soo jeedinteeda inaan ka faa'iidaysan doono hadduu ilaahay rabbi idin alkariim waxaan kaloo ku ammaani doonaa macadka oo asigna soo koriyey qoraallo walba la sameeyay inuu ka dhigo open access ay heli karaan asiga oo digital ah iyo asiga soft ah ayna ka heli karaan macadka website-kiisa joornaaladii hore folio monkeyna waa laga heli doonaa hadduu ilaahay rabbi idin alkariim website-ka haddaad booqataan joornaalka hadda ugu dambeeyana waa ka heli doontaan maanta aqoon isweydaarsigan oo sanadla ah wuxuu wataa mufaajacaad badan waxaan rajayn doonaa qof walba maanta inuu hadiyada qurux badan halkan kala tegi doono hadiyad cilmi ah wax badan oo ka faa'iideysan doono biidnillahi alkariim waxaan rabnaa si aan ugu faa'iideysano waqtiga kelmadda xigta inaan ku soo dhaweyno ilaa soo dhaweysaan mar labaad الدكتور عبد الشكور شيخ حسن فقي أقاسمها تعليم السرع يدقنك وزارة البرشة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقا هرقبا هي هدي عدكي يقرر لي هذا. سلام كدب ولا ليال وأنا مهنقينا معهدك آيسوس سيدي وناكسن أما وحف في عنو لبلابي أو إن بل أقوياهنكي يددكي الصوماليات لنا عن وناكسن أي حلقة اللي جارك ولا حلقة أي كم أنا قاعد حل رادس عن هاي دلك وأكتيه إنه أنت أن حرمة قادنا إيه كهرباء إلى ما أنت ولي مشكلة بلشانة هي سته arrimaha bulshada cilmiga bulshada la yiraahdo waa cilmi ku salaysan fikriga علومta kale waa علوم farsamo ah adduunyadu waxa lagu hormaray in la hormariyo cilmiga fikriga ah oo annaga bulshooyinkeena iyo dhibaatada bulshanimada soo qabsatay muddo dheer nana hayso wali xal raadisna nahay wali mushkilado aan qabno waa muhiim cilmigan bulshada in aad oo fikirka ku dhisan inaan aad xoog u saarno maanta dalka aniga waxaan isleeyahay alxamdulillaah ilaa galbeed iyo bari baa la kala aaday waagii kacaanka oon jaamacadaha dhiganaynay profesorka ninka profesor la yiraahdo waa nin kulliyadda kaala baxay waaye oo isla shalay uu dhiganay iska dhiganaysan berin isaga ayaa profesor ahoo waad ogtihiin maanta nuguma yara aqoon oo ragga halkan fadhiya waa dakaatiro dad khubaro waaweyn kulli mutacalimiin way waan aqaan dadka wajiyada aadana u garanaya waxa saaran marka waajibkii cilmiga hadii la qariyo oo aad gurigaaga la fariisatid oo aad ku deeqi weydid waxa weeye waa annagu muslimiin baan nahay dadka Soomaalida in xalka loo raadiyo dadkan aqoonyahanka ayaa inay badbaadiyaan ay tahay dalka taa darteed waajibana wada koray marka maxadka ISOS qaabka hadda u tartiibka uu bilaabay in research dalka wali waa soo kabanaya waxa meelaha la joogo dhan way liitaan aad u liitaa dalka mushkiladana haysata marka cilmi baarisyadaas iyo doodahaas muhiimka ah sunna hadda bilaabatay hanoo noqoto oo dalkii dadkan aqoon-yahanada ah wixii dhacay waa dhacay ha u kacaano cilmi baarisyada oo bulshada aad ha looga shaqeeyo oo ha loo qoro si aan u gaarno joornaalada adduunyada ka soo baxaan cilmi baariseen ay kor u soo kacdo haddaan taa baranaynaa marka inaan joogtayno oo jaamacaduhu ay noo qabtaan kulamada aqoon-yahankana soo ururiyaan isu keenaan waa arrin aad loogu mahadceliyo weeye maxadkuna aadan ugu mahadcelinaynaa aniga ku dheeraan maayo intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ugu mahadcelinaynaa doctor cabdishakuur sheekh xasan fiqi agaasimaha tacliinta sare iyo dhaqanka haddana waxaan toos u gudgali doonaa kelmadda xigto waxaan soo dhaweyn doonaa doctor maxamed xuseen ciise doctor liimaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha calaaqaadka ama arrimaha xiriirka ee jaamacadda muqdisho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay maanta
shirweynaha ama aqoon-sidaarsiga saddexaad ee Machadka Daraasaadka Soomaaliyeed uu qabto oo jaamacadda Muqdisho ujeedaduna ay tahay oon ka fakarno dhinacyada nolosheena Soomaali ahaan ee nala taabtay waxyaalaha taabanaya in laga fakaro. run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay aqoon-sidaarsigan marka dambaysaba nawciyada inay aad u sii xoogaysanayso, aqoon-yahanadu ay noqonayso meel ay ku kulmaan. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxda jaamacadaha nala jooga aan partnership-ka aan nahay ka wada shaqeyno cilmiga iyo tayeynta waxbarashada ee dalkeena iyadoo hawshaas la wada hayo iyo asaatidada kale ee baaxitiinta ah ee jooga. yaan si gaara u salaamaya iyo dhammaan marti sharafka ka soo wada qayb galay wiilal iyo gabdhaba. waxaan leeyahay muhiim waaye annagoo akadeemiyadii wadna hawshii la wado in nolosheena iyo inaan ka fakarno mar walbaba Soomaali ahaan maxaan horumarinaynaa. wax kastana waxay u baahan yihiin cilmi baaris. waxaan aad ugu mahadcelinayaa Dr. Maxamed Ibrahim hadda waa arqaamtii iyo waxyaalaha yar uu soo bandhigay waxayna tusaysaa meeshaan Soomaali aan ka joogno xagga cilmi baarista aan ka joogno. marka waa sida uu tilmaamay doctorka haddii aan gacmaha isqabsanno institutionada aslanba way nagu yar yihiin maanta jaamacadaha iyo dadka dadaalka wado iyo baaxitiinta marka loo eego caalamka dunida inteeda kale aad bay noogu yar yihiin. maraaxisha baxdiga waxaa aad loo galaa marxaladda magisterka iyo doctoraaga iyo marka la gaaro iyo macaahidda iyo maraakisda iyo jaamacadaha. marka inta joogta hadday gacantu isqabsadaan oo ay sameeyaan aqoon isweydaarsi iyo meelo ay ku sheekaystaan oo sheekooyinka ayaa waxaa ka dhasha wax walba talooyin beebaraa ka dhasha. marka mar walba oo la isku yimaado wax weyn ayaa la kala faa'iideysanaya. aqoon-yahanadu markay sheeko wadaag ay noqdaan waxaan leeyahay siyaasiyiintu waa sheeko wadaag oo waxaad arkaysaa xataa iyagoo bahbah usii kala jooga oo maamul goboleedyo usii kala jooga ayay u yihiin. marka annagana waxa weeye aan xagga siyaasadda iyadoon la ahayn ummadeenni sideen wax u samaynaa inaan sheeko wadaag noqonno oo laga sheekeeyo war xaggee hadda waa la garan la'yahay Soomaaliya xaggee u socotaa, siyaasiyan xaggee u socotaa, dhaqaale ahaan xaggee u socotaa, xataa waxaa la isweydiinayaa dhaqan ahaan xaggee u socotaa. cabsi baa jirta ummadan waxaana la og yahay marka la sheego ummad firfircoon inuu yahay cunsurka Soomaaliga. ummad waxyaalaha waxaa fiican Soomaalidu ay leeyihiin way han weyn yihiin, laakiin haweenadaas haddii meel kale lagu wajaho waxaa dhici karta ama waxyaalaha heera ku hareeraysan hadday liitaan hankaas ma soo baxayo. mar walba wuxuu aadayaa dhinaca qalloocan. marka hankaas waxaa soo saari kara mar walba in loo fakaro laguna celceliyo waxyaalaha asaaska u ah nolosha asaaska u ah. marka waxay la tahay maxadka arrintan uu hadda u sameeyey waa dadaal inta badanna waxay dadaadaan maxadka uu samaynayo ama Somali Studies waa dibaduhu ka socotay. hadda waxaa jira mid caalami ah oo ugu yaraan kii 11aad miyuu maraya ma adri shirweynihii 11aad oo kale marna lagu qabto dibadaha lagu qabto. dalka gudihiisa iyo institutionada inay iyaguna qabsadaan oo daakhilka Somali Studies lagu qabto oo marba meel lagu qabto aad bay muhiim u tahay. marka waxaan isleeyahay waa taas waxyaalaha sii horumarin kara in annaga aan dib u fakaro. marka ani waxay la tahay waxa muhiim ah marka daraasaadka Machadka Daraasaadka Soomaaliya arrintan uu bilaabay inay tahay arrin muhiim ah oo la isku kaashan karo oo wadanka gudihiisa as a national level intii la isugu yimaado la yiraahdo daraasaad Soomaaliya waa inaan sanad walbaba la qabtaa oo aan ka sheekeynaa annagoo oo laga fogeynayo waxyaalaha kale ee ku yeelan kara saameyn siyaasad ha noqoto ama maamul goboleed ha noqdo ama wax kale oo si cilmi ah loo fakarayo. marka beebarada hadda soo gudbin doon dhinacyo badan ayay taabanaysaa. xataa waxaa ku jira dakaatiro qaarkood ay ka hadlayaan arrimaha islaamka. war annaga maxaana laga haystaa haddii la yiraahdo Soomaali waxaan nahay dadka waxaa lagu tiriyaa ugu tadayunka fiican ugu diinta ku dhaqanka fiican ومع ذلك وحبان سنجا مرك مر والبو وحي أباهن تهي
daraasaadka in la sameeyo dhinac kasta waa Soomaali waxay uga baahan tahay daraasaad marka waxaan leeyahay guud ahaan dadka baaxifiinta ka qayb galay daraasaadka mu'tamarkana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay masiid iyo buxuuth kale inay sameeyaan sidoo kalena dhammaan jaamacadaha iyo maraakista cilmiga ah sida caamka ah in daraasaad Soomaaliya caam loo sameeyo way jiraan daraasaad Soomaaliya oo si gaar ah hadda waxaa jira macaahid ku takhasusay siyaasadda oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya kaliya oo baxthi ka sameeya marka in la helo kuwa mutakhasisa waa muhiim in la yiraahdo waxaa jira markas ku takhasusay daraasaadka Soomaalida ee siyaasadda kuwa ku takhasusay dhaqaalaha kuwa ku takhasusay taariikhda kuwa si caam ah oo uga hadlo intaasba faa'iido ay loo leedahay marka kuwaas marka ay bataan waxay noqonayaan cala al-aqal 120,000 la sheegay xoogaa waan ka soo degaynaa waxaa la leeyahay 60,000 50,000 waxba inaan soo noqono akhiiran annaga 8 iyo 10 iyo waqti dambe hal la gaaray inaan noqono waxaana aad ugu faraxsanahay iskaalmaysiga ficlan oo la iskaalmaysanayo oo xagga buxuusta iyo waan xasuustaa kolka la diraayo dhowr bilood ka hor waxay ahayd in laga qayb galo marka in jaamacado kala duwan iyo maraakis kala duwan iyo dakaatiro kala duwan inay ka qayb galaan iyadana taa waxay ku tusaysaa in la yaani horumar weyn laga gaaray xagga wacyiga iyo waxa naga maqan inay tahay shay la wada raadinayo oo la wada doonayo marka taana aad aan ugu mahadcelinayaa waxaan isleeyahay saddexda maalmood hadduu Ilaahay yiraahdo waa wax la soo koobay iyo qofka jeedinaya kadibna comment laga bixinaya taana waxay noqonaysaa qofka isagana xataa baxdigiisa inuu sii hormariyo ay ku qaadaysaa waa muhiim marka ka qaybgalkiinana aad u muhiim u yahay waqtigu haddaan beeqaansano ilaalino waqtiga la imaanayo iyo waqtiga la gadoomayo haddii mataqaanaa la sameeyo waxaan isleeyahay wax weyn buu soo saarayaa waxaan leeyahay mu'tamarkan iyo ama aqoon isweydaarsigan sanadlaha ah waxaan u rajaynayaa guul ayaan u rajaynayaa waxaana leeyahay wuu noo furan yahay si khayr qaba Ilaahay ha noogu wado waxaana u rajaynayaa dhammaan kuwa laga faa'iideysto iyo talooyinka iyo waxyaalaha uu soo jeediyo in mustaqbalka kuwa laga faa'iideysto noqdaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkeenu qaybteena furitaanku hadda intaa noqotay barnaamijkeenu qaybaha uu noqon doono waxaa la idiin qaybiyey kolay yar oo ay ku jirto dhowr arrimood waxaa ka mid ah marka barnaamijkeenu saddexda maalmood sida uu ku soconayo ayaa ka mid ah jadwalka waxyaabaha baxaya ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah cadadkii ugu dambeeyay Somali Studies waxaa ka mid ah waxyaabahaas marka jadwalka faahfaahintu halkaas ay ku sii taalaa sidaan tilmaamay wuxuu noqon doonaa 5 fadhi fadhiga horeeya dabcan jadwalku wuxuu ku qoran yahay markaad arki doontaan waa cinwaanadu qof walba cinwaanka soo kusoo gudbiyo cinwaanada qaarkood af Ingiriis bay ku qoran yihiin qaarkoodna af Carabi bay ku qoran yihiin qaarkoodna af Soomaali bay ku qoran yihiin si khayrkiya barakada aan luqadna una u seegin baa looga jeediyaa marka si u sahlanaato qofka wuxuu ku soo diyaariyay baa cinwaan ahaan ugu sahlan taas dhib ma laha ka ugu horeeya fadhiga ugu horeeya oo maanta inoo dhici doona wuxuu ku saabsan yahay arrimaha caafimaadka iyo fayadhowrka iyo waxyaabo la xiriira 3 warqadood oo kala duwan ayay inoo soo jeedin doonaan 3 cilmi baare oo dhinacyo kala duwan arrimahaas ka fiirin doona berri oo Arbaca ah isna waxaa jiri doona dhowr fadhi ka hore wuxuu ka hadlayaa arrimaha bulshada taariikhda afka iyo luqadda iyo waxyaabo la xiriira iyadana ilaa 4 diraaso oo kala duwan ayaa lagu soo bandhigi doonaa dhinacyo kala duwan ayayna ka fiirin doonaan aqoon-yahanadaasi sida kale jadwalka ku aragtaan isla berri waxaa kale oo ku jira mowduuc kale oo la yiraahdo islaamka iyo bulshada Soomaaliyeed ee xilligan arrimo la xiriira diinta islaamka ama ku dhaqankeeda ama faafinteeda ama waxyaabo noocaas ah ayaa ilaa 3 waraaqood oo kala duwan la inoogu soo bandhigi doonaa khamiista hadduu la yiraahdo 2 fadhi ama 2 session ayaa jiri doona ka ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa peace building and governance dhisidda nabadda iyo arrimo maamulka iyo waxyaabaha guud la xiriira ilaa 3 warqadood ayaa lagu soo bandhigi doonaa 2 cinwaankoodu ku qoran yahay meesha oo dhinacyo kala duwan arrimaha ka fiirinaya fadhiga shanaad ee ugu dambeeya
maalinta khamiista ah isna wuxuu ka hadli doonaa arrimo la xiriira deegaanka iyo khayraadka biyaha dhinacyo kala duwan bay deegaanka ama environmentiga laga fiirin doonaa iyo biyaha intaba dhowr waraaqood ayaa isna lagu soo bandhigayaa shantaas fadhi guud ahaan saanuutkii hore waa 15 waraaqood marka la isku daro daraasadaha la soo bandhigayo sida uu ku salaysan yahay wax weyn qof kasta oo warqad ama daraaso soo jeedinaya waxa loogu talagalay 15 daqiiqo inuu ku soo jeediyo wuxuu soo gudbinayaa waa nuxurkeedii waxa xigi doona marka wuxuu u socon doonaa barnaamijku warqadaha fadhi kasta uu ka kooban yahay marka hore la soo jeedinaya kadib waxa loo furayaa ka qaybgalayaasha waxa u furan inay faallo saaraan qof kamid arrimihii laga hadlay arrin kamid ah inuu qofku faalleeyo isagoo soo koobaya dabcan waxa kale oo u furan inuu su'aal ka soo jeediyo ayadana waqtiga yar oo loogu talagalay baa ku jira kadib waxay noqon doontaa in markii lagu celiyo cilmi baarayaasha warqadaha soo qadimay iyagu wixii ay ku sii faallayn lahaayeen iyo inahaas oo kaleeto marka barnaamijkeenu saas uu inoogu socon doonaa insha Allah tacaala maalinta khamiista ah ayaanan soo xiran doonaa bareega waxaan ugu talagalnay inuu maalin walbaba bareega cabitaan yar inuu jiro nus saac baa loogu talagalay inuu yar badan yahay baad moodaa laakiin arrintu ma ahayn kaliya wax loogu talagalay isbarasho iyo isdhexgal maadaama ay dhici karto dadka qaarkood inay isugu horeyso kulankan in ay isku sii bartaan ku sii sheekaystaan muxuu ah fursad la isku yar siiyo marka halkaana waxaan rajaynayaa nus saacaas in uu noqon doono mid inagu filan oo hawshaas oo dhan inoo wada qabanaya